inaad reerkaaga maalgashato waqti gelisid investment ka gelisid aad maalgashato inay ugu muhiimsan yihiin oo waxa adduunka yaalo dhan ay dadku ka fiican yihiin waxaan u soo qaadanayaa sheeko hadda ka hor 10 haraan ku sheegay ayaan ku soo celinayaa maadaama ay muhiim u tahay qaybta bakhaylnimada iyo in dadku ay ka fiican yihiin waxa xoolaha balaadku tahay ninkan oday oo ahaa askartii hore oo ahaa dawladdii reer buu yeeshay 7 ciyaar iyadoo ii joogto soo aniga iga sheekay ayaa maalin dambe shilina aan ahayn in xoolo haystaan ahayn ayaa gabadhii maalin dambe wuxuu yiri oor bay lahayd waa foolatay 2 gabdhood oo mataan ay dhashay hal shilina ma hayo waa fikiray gabadhii isbitaal bay ku jirtaa lacag ma haysid qof kale ku carartaa mal maskaxdeeda hadan cabar wareejiyay oo meelaan isku qaada aan laahay yaa markii dambe waxa igu soo dhacay wi oday adeer iyo hoo xoolo ilaahay siiyay markii hore maskaxdeeda ka maqnaa odagu caruur ma dhalin laakiin waa taajir xoolo ilaahay intii ku filan iyo ka badan buu waasii laakiin awlaad ma leh kuma soo dhicin marka Shaafici oo ninka iga sheekeynaya arrinka in odagaan awlaad la'aan yahay kuma soo dhicin xoolihii yaa isku soo dhacay uu soo raadiyay asoo galabtii meel fadhiya ayaan ugu yidbiyo oo markaa hurdo ka soo kacay salaan kadib waxaan u sheegay in culays badan ay haysto oo xaaskii iyo umushay 2 gabdhood oo mataana dhashay isbitaalka ku jirto waxaan uga soo saarana aan laahay oo yimid oo caawin ka rabo warkii markaa u dhameeyay si dhageysanay gadaal u fariistay wiiri daqiiqad meelaha soo aamusnaa wuxuu igu jawaabay wiiri Shaafici xoolo maanta aan ku siiyay ma haye bal uga raadi oo mush meel kale wax uga raadi wuxuu leeyahay Shaafici warkaas wuxuu igu noqday wax aan filay nin weyn oo adeer oo xoolo haysta oo ilaahay siiyo bakhaarale guriyale importo exportiya oo aan ugu yimid inuu gabar u mushay istaal iga saaro waa qaadan waayay markaas aan waxaan yiri adeer aniga meel aan ku noqdo ma haysta adeer dad ii xigay xoolana ma haysto gabar istaal ku jirtaa iga daa waxba ma hayee ilaahay baa ku siiyay wax iga sii waxa haysto maanta gabadha istaalka iga soo saar wuxuu igu jawaabay maanta xoolo iga qaadi meyside Allah ku nabad yaab way isaga tagu yiri marka anu aad u neeyay samay isaga tag meelahaas aan galgalay gabadha istaalka ilaahay ka soo saariyo guriga geestayo xaaladii waan ka gudbay khatar tahay bil kadib yaan si kale ana u socda odagii dana mar kale meesha sugnayd waqtiga kale waan eedeeyay waxaan ku eedeeyay Soomaaliya waa is eedeysaan waxaan iribi ninka intaan waqtiga xaal saas igu adkayd aanu imid waaridkan iyo aha xoolana haystay saas ii galay soo mati wax dambe aan ka dugsanay wax kale aan ka rabo iyo wax inaga dhaxaynaya midna ma jiraan adoo maanta taajirka nagi hada saas ii gashay eedii markaan cabaar ku sii daayay buu inta soo fariistay wuxuu yiri maxaa iga rabtaa Shaafici soo moogid adigu inay iga taajirsan tahay adigu iga taajirsan tahay soo moogid waan qariibsaday buu markii waxaan qariibsaday erayga ninka adeerka igu leeyahay yaraad u qariibsada waxaan ku yiri adeer maxaa ka wadaa soo iga taajirsan maxaa ii jikaaleysaa xoolo xaqii yaalin maxaan haystaa intuu soo dhawaaday oo sidii qof dhigta wax igu sheeg aad igu soo dhawaaday wuxuu yiri inay iga taajirsan tahay ku cadeynayaa xoolahan aniga haysto oo aad leedahay taajir baa ku tahay dhamaantood waa kugu soo wareejinaya 2 gabdhood oo mataanaha oo adiga aad dhasho hadda aad leedahay waxbaan u lahay mid kamida iiga bedelo hal gabar si waxaan haysto dhan aan ku siiyo wuxuu yiri si waxay u noqotay kada warkii kado markaas waxaan iri adeer hadda qof miyaa la iibin karaa oo iib miyaa qof geli karaa markaas wuxuu yiri haddaan qof la iibin karin oo ogaatay oo aad leedahay qof lama iibin karo xoolaha haystan kaaga bedelin maayo aad leedahay soo igama taajirsan waxaad ogaataa wiil wax alla waxaan haysto dhan haddaan ku heli karo hal gabar haddaan ku heli karo caawaasiisan lahaa 70 sano jira cimrigii waa yar yahay
hal gabaroo i haysa oo aanu u adeegsado waxyaabaha yararka ah guriga yar inay ii soo qabato hadday iga dambaysana ii soo ducaysa xoolahaas inta ii sadaqaysa ama waxaan heli karaba ay ii soo ducaysa haddaan heli karo waxaan haystoo dhan waa ku bedelan lahaa marka inaad tiraahdo taajirka nagii baata adoo ilaahay awlaad ku siiyey wax badan baa kaa maqan buu yidhi ya allah ku nabad yeelo warkii markaan odaga ka dhageystay buu yidhi waa qaboobay waa naxay waa run xoolo wuu leeyahay laakiin awlaad ma lahayn aniga qalbiga waa ka baxsanayd si odaga u fakerayo ah anigu in taajir ahayna isuma qabin nin faqiira oo waxba haysan baan isu qabaa asagana taajir baan u qabaa asagana wuxuu isu qabaa inuu faqri yahay oo anigu aan ka taajirsanahay waan qireeb waxaan yidhi adar waa run taajir baan ahay ilaahay awlaad buu isiiyey waa runtaa haddii ilaahay maaragtay ii kasana waa ii soo ducayn adigana ilaahay awlaad ha ku siiyo meel aanay filim ba waxa iga sheegtay waa mahadsan tahay baan ku yidhi waan ka soo baxay maalintaa wixii ka dambeeyey waxaan u istaagay buu inaanay nin taajira oo xoola haysta ilaa dad wax ka qaalisan ma jiraan ilaahay dad buu siiyey iyagaan u istaagay inaan ilaashado iyagaan u istaagay inaan waxbarto iyagaan u istaagay inaan moralkooda iyo macnahooda ilaaliyo hadda wuxuu yidhi waxaa noqday casharkaas odaga aan ka bartay waxaa noqday buu yidhi nin dadka la taliya oo idhaahdo markaan arkay nin ciyaal dayaacaya ama reerkiis dayacay markaan arko waxaan idhahdaa waniba ilmahaaga ha dayacin maanta risoska ama xoolahaad haysato asadkaa haysato ma ogid hantidaa haysata waa carruurtaas iyo reerkaa hanti ka qiimo badan ma haysatid waxa kaloo dhan waa kaa macno male waxaad haysata iyaga gasho dhaqaalayso ilaasho waxba xoolo maaliyadeedoo lacageed iyo mid guri waxba ha raadin maxaan ka faa'iidaynaa markii qisada ninkaa Shaafici waxaan ka faa'iidaynaa inaan fahamno in maanta investmentiga ama maalgelinta ugu muhiimsan ee qof wax maal gashada ay tahay inuu guursado waxa ugu muhiimsan oo la ilaashadana ay yihiin carruurta waxa lagu ilaashadana ay tahay wax alla waxa ilaahay ku siiyey ama lacag ha noqoto ama caqli ha noqoto ama maskaxdaada ha noqoto inaad ku ilaashatid carruurtaada sababtoo ah waa hantidaada dhabta ah waa haddii aad dhimato wixii kaa dambayn lahaa haddaad nooshaan wixii ku hayn lahaa hanti ka qaalisan ma jirto bakhaylnimadu yaysan keenin wax qiimaha badan intaan wixii noogu qiimo badan intaan ilowno wax aan qiimo lahayn waqtiga inaan ku limino caqligana ku limino xooggana ku limino waxaan codsanayaa bakhaylnimadu iyadoo halkaas ay ka joogto oo reeraha aniga ay burburisay inaan fahamno dhibaatada ay leedahay inaan ka taxadirno inaan guryaha anaga iyo reerahana ku ilaashano wax ilaahayna siiyey wixii ilaahaysa ku siiyay gacantaadan ku jirin laa yukallifu Allahu nafsan illaa wus'aha laakiin wixii adoo haysta waa baaba'ayaan waa dhimanayaan waa musallafaya marna qalbiga shaydaan yuusan gelinin ilmaha dhaqaalayso naftaada uga raaxee intaad noosh sadaqayso ku kifaax intaad nooshahay waa in si fiican loo fakaraa waa in caqligu shaqeeya anigoo rajeynaya inaa casharka bakhaylnimada ah aan ka ilaashan doono qoysaskanaga si ay noogu badbaadaan waa qoys bilow idin leh mar dambe iyo kulanti wanaagsan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh